waxaan ahay Shaafici Maxamed Cali loo garanayo yahay Ciro waxaan ka socdaa magaalada Ceerigaabo waxaan ka mid ahaa tartamayaashii ka soo qayb galay barnaamijka Daaris ay fulisay Saami Foundation bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Hodar Cumar Jaamac waxaan ka mid ahay tartamayaasha ku soo gudbay labadii wareeg hore oo soo gudbay wareegga saddexaad kana qayb galaya caawa waxaan ka socdaa gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood magacaygu waa Cabdiraxmaan Axmed Barre waxaan ka socdaa gobolka Gibiley waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid ahay 230 qof oo ka soo dhex baxay 10,200 oo tartama waxaan rajaynayaa tartankaas loo qaban doono 230 qof oo ah tartankii u dambeeyay inaan kaalin fiican galo ama baan ka mid noqdo tartamayaasha oo aan guuleysto bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdirashiid Maxamuud Cabdi oo ka socda Burco waxaan ka qayb galayaa tartanka ugu dambeeya ee Daaris qabatay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وأيان محمد حسن وحن كسعودة بورما وحن كتيرة ترتنكي وجودن بي عم قلت وجودن بس ترتنكي دارس وحن رجينا رومانتي جود مقعي وهذا ساعد عليه وحن كنت ترتمي برنامج كدارس أخرسكا يو حويا فهنكا ككوبان لبدا قيبود وحن كترتمي قبل كنا رجح ما دام مقالة هالكيسة دقنا هي بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعوالي سعيد علي وحن كسعودة مقالة بربرة أما قبل كي ساحل magaalada xadaarada iyo jacaylka saaxiibkii kalluunka waxaan ku tartamayaa barnaamijka Daaris oo laba jeer hore kaga soo qayb galnay magaalada Berbera marsaxaadkii waxaan joognaa Hargeysa oo ay Daaris nagu casuumtay magacaygu waa Maxamed Xamdi Ibrahim kana soo jeeda gobolka Maroodijeex magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan Jaamac waxaan ka yimid gobolka Sool magacaygu waa Cabdiraxmaan Xasan oo ka soo jeeda magaalada Hargeysa magacaygu waa Khalid Maxamed Salawaan kasoo lacag dantay ama kasoo baxay gobolka Ragga ee Togdheer magacaygu waa Maxamed Jaamac Ismaaciil ka socda gobolka Togdheer magaalada madaxdiisa Burco magacaygu waa Maxamed Jaamac Cali kana socda gobolka Maroodijeex magacaygu waa Maxamed Cali Cabdilaahi oo ka soo jeeda gobolka Martigelinaya tartankan Daaris Maroodijeex magacaygu waa Cabdulle Maxamed Bulaale oo ka socda magaalada Laascaanood magacaygu waa Shaafici Cabdilaahi kana socda una tartamaya Hargeysa magacaygu waxa weeye Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud waxaan ka socdaa magaalada Hargeysa oo martigelinaysa barnaamijka Daaris magacaygu waa Yuusuf Ile Yuusuf waxaan ka socdaa gobolkii Daraawiishta astaantii halganka iyo gobonimo doonka ee Laascaanood magacaygu waa Sideed waxaan ka socdaa magaalada Hargeysa magacaygu waa Salmaan Cabdilaahi Faarax waxaan ka socdaa caasimadda Hargeysa magacaygu waxa weeye Cilmi Maxamed Ibrahim waxaan ka socdaa gobolka Jacaylka gobolka Saaxil magacaygu waa Salmaan Mujtahid Xuseen waxaan ka soo jeedaa gobolka Gibiley bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed waxaan ka socdaa Hargeysa magacaygu waa Cabdiraxmaan Ismaadi waxaan ka socdaa gobolka Saaxil gaar ahaan magaalada Berbera magacaygu waa Shamsi Khadar Cabdilaahi waxaan ka socdaa magaalada Laascaanood gobolka Sool magacaygu waxa weeye Farxaan Cabdi Cismaan waxaan ka socdaa gobolka Saaxil degmada Berbera magacaygu waa Axmed Cabdisalaam Cawiil waxaan ka mid ahay tartamayaasha gobolka Sool ee barnaamijka Daaris magacaygu waxa weeyaan Cabdisaaq Abdishiid Calidiid waxaan ka socdaa magaalada Burco ee gobolka Togdheer waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarta faraha badan leh ee sanadada dambe sugaya dadka isugu jira cilmiga iyo aqoontaba leh kumanaan kalena daawanayana waan u mahadcelinayaa dhammaantiin guul baan idin rajaynayaa dhammaantiin baad baa wanaagsantii sac baan ku sabootino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu ku bilaaban doonaa tartamayaasha ugu horeeya oo ka socda magaalada Hargeysa oo markaa magaalada martigelinaysa waxaan u yeeri doonaa Maxamed Cali Cabdilaahi oo Hargeysa ka socda oo tartamaheena caawa koobaad ah isla mar ahaantaana noqonaya tartamaha lambar 9 iyo sidoo kale Shaafici Yuusuf Cabdilaahi oo isna Hargeysa ka socda oo tartamaha isna koobaad ee barnaamijkeena ah tiradii socotayna noqonaya tartamaha 9aad waxaan rajaynayaa qoladii farsamadu inay joogto 1 2 3 waa bilaabi kartaan
waayahay uma baahnin inaynu cid natiijada wax ka weydiino soomaalidu waxaa ku maamaadaa isha macalina dhammaantiin sida shaashadda idinka muuqata isha idin macalina qof kastaaba wuxuu keenay dhibcihii hore haddaan idin xasuusiyo aan ku horeeyo ee maxamed cali cabdilaahi injineerka soo socda injineer maxamed waxa uu keenay boqolkiiba 75 heerka fahamkiisa xagga dhibcaha ama xawaaraha akhrisku uu ahaa 238 erey halkii daqiiqaba iminkana heerka fahamkiisu waa boqolkiiba 23 halka xawaaraha akhriskiisu uu yahay 109 erey halkii daqiiqaba markana waxaan u gudbi doonaa injineer shaafici isagana xawaaraha akhriskiisu markii fahamkiisu wuxuu ahaa boqolkiiba 760 halka akhriskiisa ama xawaaraha akhriskiisu ahaa 212 erey halkii daqiiqaba iminkana heerka fahamkiisu waa boqolkiiba 46 halka boqolkiiba 130 erey uu akhriyi karo halkii daqiiqo waxaad arkaysaa halkaa markaa in hoosu dhac uu ka jiro marka la barbar dhigo tiisii hore tartankaynu kusii socon doonaa markaasi haddii alla yidhaahdo waxaan hadda u yeedhi doonaa labada tartame ee barnaamijka ka qaybgeli doona waxa weeye cabdalle maxamed bulaale oo ka socda magaalada laascaanood iyo aadan jaamac ducaale oo ka socda magaalada hargeysa sacab aan ku soo dhoweyno hana yimaadaan stageka sidaan la wada soconno cabdalle yare oo markaasi magaalada laascaanood ka socda waxau akhriskiisii hore ahaa fahankiisu waxa waa 760 halka xawaaraha akhriskiisuna uu ahaa 371 dabyar muushideen aadan jaamac ducaale isagana boqolkiiba boqol buu ahaa fahankiisu akhriskiisu halka uu ahaa 270 waxaan ku odhan lahaa cabdallow diyaargarow insha allah hadhow baan ku weydiin doonaa wax isbedelay xawaare fiican baad haystaan labadiinuba cabdalle iyo aadan baynu u kala bixi doonaa barnaamijkuna waa idiin bilaami doonaa bisinka u qabta insha allah bilaabana insha allah aad baynu ugu hambaliyeynaynaa natiijada way inoo wada muuqataa waxaa idiin muuqda in cabdalle maxamed bulaale oo ka socda magaalada laascaanood uu heerka fahamkiisu ahaa boqolkiiba 46 xagga xawaaraha akhriskuna uu ahaa 238 sidoo kale aadan jaamac ducaale heerka fahamkiisu waxa weeyaan boqolkiiba 62 xawaaraha akhriskiisuna waa 252 aad baynu ugu sacabinaynaa labadoodaba aad baynu ugu hambalyeynaynaa dadaal fiican baad keentay kolley labadaan u yeedhaa inay maxamed ka sarreeyaan waa yar jecelahay markaa aad baan idigu sacabinayaa meel wanaagsan baad gaadheen aada loogu sacabiyo runtii aad baan idigu sacabinaa insha allah waayi markan waxaan u yeedhi doonaa haddaan markii hore reer hargeysa u yeedhay iminka waxaan u yeedhi doonaa haddana boorame iyo hargeysa waa khaalid cabdulla saalax oo boorame ah iyo cabdiraxmaan xasan axmed oo hargeysa qoladii farsamadu inay diyaartaan filayaa waynu bilaaban doonaa waayahay hambalyaan leeyahay khaalid iyo cabdiraxmaanba khaalid cabdulla saalax oo ka socday boorama waxa uu heerkiisii fahamkii hore ahaa boqolkiiba 75 iminkana waa boqolkiiba 77 waxaa loo socday markaas sare u kacay heerkiisii fahamku xagga xawaaraha akhriska uu markii hore ahaa 208 erey halkii daqiiqo
imika waa 195 erey halkii daqiiqo hambalyaan leeyahay aad baad u mahadsantahay khaalid markan waxaan u gudbi doonaa cabdiraxmaan xasan axmed heerka fahamkiisu markii hore waxa uu ahaa 60% imikana waa 450 halka xawaaraha akhriskiisu ahaa 330 haatanna uu yahay 168 hambalyaan leeyahay labadiinaba aad baa u mahadsantihiin alloo sacbiyo waxaan idiin rajaynayaa guultan ka badan aad baad mahadsantihiin cabdirasaaq baan mar kale ku wareejin doonaa iyo tartamayaasha ku xiga waxaan hadda u yeedhi doonaa labada tartame ee madasha iman doona waxa weeye cabdiraxmaan asad mahdi oo ka socda magaalada berbera aadan loogu sacabiyo waxaa kaloon isagana u yeedhi doonaa cawaale siciid cali oo isaguna ka socda isla magaalada berbera akhriska oo diyaargaro haddii la idhaahdo labadiinaba inaad diyaartii baan rajaynayaa insha allahu waana idii bilaabi doonaa 1 2 3 sii daaya cabdiraxmaan asad mahdi markii hore ee berbera uu joogay iskoorka inagu soo gaadhay ee fahamku waxuu ahaa 50% xawaaruhuna waxaa 272 caawa deg deg aad uu sameeyey waa dadaalay 31% ayuu fahamkiisu ahaa 225 xawaarihiisa ahaa 255 sidoo kale cabdiraxmaan cawaale siciid cali markii hore 8% ayuu ahaa fahamkiisu halka xawaarihiisu ahaa 221 dadaal fiican ayuu sameeyey maanta fahamkiisu waxa weeyaan 69 ku dhadhaweeyey speedkiisuna waxa uu noqday 266 aad loogu sacabiyo dadaal fiican baa sameyseen aad baan idigu sacabeen aad baa mahadsanteen waxaan u yeedhi doonaa cabdirasaaq cabdirashiid caydiid saacabal ku soo dhaweeya cabdirasaaq waa reer burco magaalada burco uga yimid suu tartanka uga qayb galo waa yahay waan bilaaban karnaa waa yahay hambalyo ayaan leeyahay labada tartame maxay ahayday tartamayey cabdirasaaq cabdirashiid caydiid markii hore heerka fahamkiisu wuxuu ahaa 67% imikana sida muraayadda ka muuqata waxa weeyaan heerka fahamkiisu 54% halka xawaaraha akhriskiisu yahay 158 erey halkii daqiiqaba uu akhriyi karo axmed cabdiraxmaan jaamac heerka fahamkiisu markii hore wuxuu ahaa 7% xagga xawaaraha akhriskiisu uu ahaa 468 erey halkii daqiiqaba aad baad u mahadsantihin waa iska fadhiisan kartaan hambalyaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin hadda waxaan u yeedhi doonaa labada tartame ee iman doonaa madasha tartamaha koowaad waxa uu ka socdaa magaalada burco waa cabdirashiid maxamuud tartamaha labaad isna waxa uu ka socdaa magaalada hargeysa waa saleebaan cabdilaahi faarax saleebaanna loo sacabiyo labadooduba ay yimaadaan stageka ku diyaar garooba insha allah haddii la idhaahdo waanad bilaaban kartaan waqtiguna idin bilaabmay cabdirashiid maxamuud cabdi oo magaalada burco ka socday xawaarihii hore fahankiisu waxa uu ku soo gudbay markii hore 67% halka uu ahaa xawaarihiisuna 284 sidaan iminka la wada soconno dadaal fiican ayuu sameeyey fahamkiisu waxa weeyaan 9% xagga xawaarihiisuna uu yahay 215 saleebaan cabdilaahi faarax markii hore waxa uu ku soo gudbay fahamkiisa 350 xawaarihiisuna waxa waa 394 halka iminka natiijada caawuna ay tahay heerka fahamkiisu 8% xawaaraha minidkii inta uu akhriyayna ay ahayd 145 waa filayaa inay meel wanaagsan labaduba soo gaadheen aad loogu sacabiyo aad baa u mahadsantihiin dadaal fiican ayaad keenteen hambalyaan idin leeyahay
waayahay aad baad umahadsantihiin dadka inta fadhida ka soo qayb gashay sida fiican u samraysay haddaad biyo u baahataan xagga dambe ay noo yaalaan iyagoo diyaarsan oo caagadii ku jira xagga yaradamo baad u kici doontaanoo ciddii biyo u baahan halkaasay ka soo qaadan doontaa waxaan u yeedhi doonaa lambar 15 labada tartame ee 15 tartamaya lambarka 15aad sita waa cabdiraxmaan xuseen maxamed oo reer hargeysa oo dadka martigelinta la ah iyo mubaarak sacad mataan oo isna reer burcaa ay bilaabanta دكتوركي انجينير كوبا dhibcaad u wanaagsan bay keeneen xagga fahamkoodu waa isfadhi waa isjoogaa waa barbarro xagga fahamka waa 54 iyo 54 inkastoo labadooda tartan ka dhaxayn oo labadooda midna guulaysan midna hadhayn ay suurtagaltay labadooduba inay hadhaan oo labadooduba soo baxaan laba tartamo kalena ay hadheen baa suurtagala waxaan doonayaa inaan si aad ugu sacabino oo aynu aad u soo dhaweyno inanta keliya ee tartamayaasha ku jirtay ee reer laascaanood Sundus Khadar Cabdilaahi aynu soo wada dhaweyno waxa sidoo kale isaguna tartanka qofka u dambeeya noqday Sidiiq Aadan Maxamed oo isaguna Hargeysa ka socda waana leedii bilaabaya kulanti wanaagsan mar kale aad aynu ugu sacabino labada tartame ugu da'da yaraa kana mid ahaa labadii ugu dambeeyey ee tartamee barnaamijka ka qayb qaatay sidaynu hore u tilmaannay waynu ogeyn macluumaadka hore ku yimaadeen hadda waxay idii wada muuqato aad arkaysaa natiijada Sidiiq Aadan Maxamed waxa weeyaan boqolkiiba 54 halka xawaaraha akhriskiisu minidkii uu ahaa 204 sidoo kale Sundus Khadar Cabdilaahi akhriskeedii hore waynu ogeyn 38 boqolkiiba fahamkeeda iyo 127 iskoor fiican ay runtii keentay aad lagu sacabiyo dadaal fiicanna way keeneen runtii meesha waxaa tartamayay 16 kala badh oo 8 ayaa caawa shandadoodii magaalada Hargeysa ka xidhay waa intii aan Hargeysa ahayn kuwii reer Hargeysana waxay shandadahooda ka xidheen tartankii barnaamijka Daaris marka inta shandadaha xidhatay guul baan u rajaynaynaa waxaan leenahay waa inoo iyo tartanada dambe